ragga ku dhaqan magaalada Wajeer ayaa ka cabanaya shirqoolo ay sheegeen in dumarka magaaladaasi ay u dhigeen boqolaal raga kuwaas oo lagu siray bikranimo been abuura. layaab iyo makaag badan daawade maxaad kala socotaa in ragga Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Wajeer ay qaati ka taagan yihiin bikranimo been abuura laba meel liskiidij oo baalka dad weynay waa la yareyna markaan islaanta waxay noqon bikra camal laakiin tan daawada la sheegay aniga waa ikow tan hadaadan imaado waa fasaad kale warbixintan oo daawada marka aad daawato mid aad la yaabi doonto ayaa mid ku saabsan sida ay u dhacdo qiyaanada ka dhanka ah ragga guurdoonka ah ee doonaya gabadhan hore loo guursan iyadoo ay sabab u tahay in gabdhaha marka horeba ay isku dhiibaan inaan mustaqbalkooda ka fakirin dantiisuna tahay kaliya inuu ku ciilbaxo inta uu la joogo warbixintan ayaa mid xiiso badan isla markaana dhinacyo badan eegaysa waxaan uga hadli doonaa waxa sababa iyo sida ay ku dhacdo gabdhahaas sidee ay arrintaani u sameeyaan inta aan daawansa waxaan ka codsanayaa fadlan YouTube-keena Bandhiga Production subscribe inoo saar videogaana like saar sidoo kale ra'yigaaga qaybta commentiga oo uga dhiiban kartaa marka aad daawato sheekadan sida ay u dhacday sida ay u dhici karto iyo sidoo kale sida looga gudbi karo laakiin mar walba waxa muhiim ah inaad dhamaysato sheekadan ilaa iyo qaybteeda ugu dambaysa oo ah muuqaalkan si aad xog muhiim ah uga hesho commentina uga bixiso dhacdooyin boqolaal ah oo hore u dhacay kadib gabar Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Wajeer ee dalka Kenya oo markii hore ninkeeda ku qiyaantay inay tahay bikro aan hore loo guursan ayaa ka sheekeynaysa sida ay qiyaanadu u maleegaan dumarka Soomaaliyeed iyo waxa ku kalifa in sidaasi ay sameeyaan arrintan ay sababteedu ugu weyn waxa ay tahay xiriirka jacayl ee ay gabdhuhu la sameeyaan wiilasha iyagoo u gacan galaya nin aan mustaqbal sida u weyn kala hayn kaliyana doonaya inuu waqti la qaato inta uu la joogo dantiisuna uu ka gaaro waa inuu dhaafiyo gabarnimadeeda noobe waa taas way jirtaa run waaye muddo 2 sano ay socotay sanooyin u socdeen sanooyin sidan ay u socdeen waana run taas way jirtaa marka arrinka dumarka oo kaliya ka warahayaan raggi kama warahayaan anu kaliya og waayo rag waxay ogaadaan ma jirin anu kala gudahayna ku sameeyno marka qofka markii uu wax qalabkaas uu isticmaalo miyuu u muuqanayaa inuu maaragtay yahay qof oo sidiisii hore ku soo laabtay oo kaleeto habeenku ugu horeysay waa u maleynay gabadho sidii hore leeyahaana u laan marka habeenka ugu hore wuxuu u maleyn karaa in maaragtay wixii dhan ay sidooda iska yihiin gabar cusub camal waa gartay gabdho baqaa jirta oo ninka balanka qaadantay ninka loo tagaynin waana dhacday waayo sidaan gabdhoonahanaba inta meel ilana lagu haysto marabna sidaas darteed ayaan u sameeynaynaa arrintaas lama dhihi karaa gabadha qiyaanada ay wado inay meeshaas ku joogsan karto oo mar horeba rag kale ayaa ninka ayaga gabadhii u guursaday la soo isticmaalay ma liis dhihi karaa gabadha markii la guursado ka damba waxyaabihii hore oo ay u soo martay inay ka garwaaqsato oo ninkeeda kaliya ay ku ekaato taas way jirtaa waayo hadda balse oo nin heshiid oo ninka guur la gashid dareenka loo nin aadid ma qabaysid ku qarkooda iska sameeyana jirtaa hadii ka waran gabadha ay ileen waa qof horaan wax u soo arkay ninka hadda ay haysato oo xalaash u qabo ay ku qanci weydo marka loo eego kii u bilaabo ku laabato waxyaabihii hore ay u soo martay marka loo eego gabdhaha oo marka ay sidaasi ku dhacdo aad u walwala ayaa sababta in ay sameeyaan xilliyada qaar wax walba oo fududeyn kara sidii ay sharaftooda ku ilaashan lahaayeen waxa ayna isticmaalaan dawooyin ay xitaa hayaan goobaha lagu qurxiyo waxaan ula jeedaa beauty salonada xilliga guurka waxaana naashnaashka arooska kadib hore loogu mariyaa adeegeeda dhajiska oo ka been sheegaya gabarnimadeeda saxda ah waxa lagu soo hagaajiyay waa la soo qodbay waa soo noqday waa la soo hagaajiyay waa qurunkan waa iga soo daasay lagu dhahay ninka ragga qurunka laga soo hagaajiyay leemoy waa soo qodbay ma dhahayn taas hore aan aragnay يعني laba meel liskiidij oo baalka dad weynay waa la yareyna markaan islaanta waxay noqon bikra camal laakiin tan daawada la sheegay aniga waa ikow tan hadaadan imaado waa fasaad kale maxay la waxaan hadda bacrimin baa hadda wax la sheegay bacrimin bini'aadamka ma ku fiicnaa bacrimin qofka bini'aadamka sidii ilaahay ugu talagalay waa inuu ahaada hadduu sidii wax asagin lafadiisu isbadbadala oo saad rabta aad waysa hadii lafadaada waxa way wax kala ku gala
markaas sidii runtii ah qofka bini'aadanka qaabkii ilaahay ugu talagalay wax ka bedeli kara ma laha waxyaalaha hadda bacriminta oo hadda soo galay wajeer waa wuxuu rag isku dili lahaa sidii runtii ah nafta iskaga goyn lahaaba arrimahaas ha laga waantooba dib dambana aan loogu noqonin ninkii lagu arkana arrintaas tillaabaha ka qaada dawladda si dhibaatadan looga baxo shakiguna u yaraado maxaa muhiim ah muhiimadda ama talada koowaad waxay ku socotaa gabdhaha iyo wiilasha waxaana ay tahay in wiilku dhowro sharafta gabadha iyada oo uu jiri karo shaydaan waxaase mar walba muhiim ah in wiilku ilaaliyo gabadha sharafteeda isaga oo ka fikiraya waxa ku dhici lahaa gabadh isaga la dhalatay oo kale iyo sida uu uga xumaan lahaa iyo mid labaad oo ah in gabdhuhu aysan inta badan fududaan kana taxadaraan qofka ay xiriirka la sameynayaan ugu yaraan sanadana baroobayaan ilaa ay inta heerka rabitaankiisu gaarsiisan yahay sidoo kale waxaa dhici karta in gabdhaha qaar looga faa'iideysto baahiyo gooni ah oo ay qabaan sida inay ku nool yihiin meel kaligood ah waxaan ula jeedaa gabdhaha qurba joogta ah oo aan qaarkood ogaanay in ay yihiin kuwa aan inta badan la nooleen qoysaskooda waxaana marka qaar sababta in gabadha oo aad dabcan u dareentaa in aysan waxba haysan uu nin lacag haysto uga faa'iideysto fursadeeda gabarnimo sidaasina ay ku seegto gabadha oo arrintaasi ay ku dhacday kadib samayn karta wax walba oo ay sharafteedii ku ilaalin lahayd xilliga guurka saan hadday noqoto magaalada dadku waa raggii oo yaraaday naagihii oo lagu dhisanaya 1 milyan iyo bar 1 milyan oo guurka haddana lasii qaalay cawada naagta markii la dhisa la 100 gaaraysa daba dhiga kuna ma qaba haye 120 kun sariir joogtay 150 kun la keen 150 sariir gadaa lagu dhahay 150 sariir inta iska gadi 100 kun aroos ku dhista laadee masaakiinaad iska tahay 100 aroos ku dhista aan saan u soo wareegayaan soo helay 50 ko ama 40 ko ama 70 ko ama soo helay dadkan waxa gabadhii la tusay waxa la ninka sariirtaadna gadhe annu waxaan baray sariirtan 8 kun ama 6 kun inaan gado naagta horta meesha ka ugu dumi idana taasna waa jirtaa wajar marka guurkii markii la waayay waxa imaaday marka zinadii iyo gaabsigii iyo gogol dhaafkii hadda aad sheegaysay yaa dilaacay kuwii markay dilaacayna si hadhow marka recovery loo sameeyay yaa marka bikra fake ah oo marka jelly iyo lagu sameeyay yaa la hagaajinaya waxa soo dhan runtii waxa keenaya guurkaas qaaliga ah ayaa runtii u sabab ah gabdhuhu diinta way akhristaan madrasooyinkay ku jiraan iskuulay tagaan diinta ilaahay mar walba way dhageystaan ha iska daayaan isku dayashada ay isku dayanayaan oo leeyihiin heblaayaba kuraasta loo dhigay ma aragtay 500 kun ay joogta 300 kun kursi kuraasteeda laga soo bixiyay anigana kuwaas oo kala raba heblaayaan ku dayanaya waxa ku dayashada ah waa inay dadku iska daayaan guurka ujeedadiisu waa in meesha labada qof ay ilaahay ku caabudaan la hagaajiyo meesha inuu ilaahay awlaad ma aragtay dalka iyo diinta iyo dadka anfacda inuu ilaahay meesha naga siiyo ya ujeedooyin waaweyn iyo goolkaas way goolka guurka ma ogid dhalaal yar oo kuraasa iyo maarta armaajado iyo muraayado meel taala iyo material yar oo saas oo kala arintu waa ka weyn tahay Sheekh Cabdiwahaab ayaa ugu dambeyntii waxa uu sheegay in dalladda ay ku bahoobeen culimaawidiinka magaalada Wajeer ay mustaqbalka dhow bilaabi doonaan wacyigelin ku saabsan guurka ayada oo lagu haminayo in la hirgeliyo barnaamij lagu dowrkeen ugu weyn jazaakallahu khayran wuxuu noqon karaa inaan annaga wacyigelin wax la yiraahdo aan sameeyno bulshada aan baraarujino dadka aan u sheegno runtii inay guurkii ay raqiis ka dhigaan sidan haddaba aan sameynayno laakiin mustaqbalka haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu raali ka ahaado waxaan isku dayaynaa bal inaan arrimo kaloo cusub ama nidaam cusub oo guurka ah inaan runtii la nimaadno anagoo dhalinyarada dabcan la kaashanayna مثلا tusaale ahaan waxaan ku soo qaadi karaa Suudaan oo kaleeto waxa marmar qaar ay dadku bilaabeen 30 wiil iyo 30 gabdhood hal habeen in la isku daro oo marka laakiin neefka kaliya meesha lagu wada qasho meesha maaragtay kuraasto la dhigto halko xaflad la wada hagaajiyo meesha nin walba gabadhiisa uu halko gaari ku qaato yaani waa 30 qof way marka taasna marka waxay ku tuqnaysaa mass marriage waxa la yiraahdo runtii haddii ay dhalinyaradeenu kari karaan associationadooda yar yarka oo ayaga ay leeyihiin oo hoose dhalinyarada marka inaan mass marriage kaas aan ku dhiirigelino 5 7 8 hal maalin inay arooskooda dhameystaan 7 kale in maalintoo la isku daro waayo qarashkiisa qofka kaligiis kama bixi karaa si collective oo wada jir ah marka in loo sameeyo mustaqbalka waxay ka mid tahay waxyaabaha runtii hadaan culimada nahay aan ku dhiirigelinayna dhalinyarada ururadan yar yar ee dhalinyaradu ay leeyihiin aan leenahay talaabada iyada ah bilaaba idinka si ay u noqoto marka talaaba
looga gudbi karo guurkan hadda nahaaya ee qaaliga ah. baaritaano badan kadib waxaa noo suura gashay in aan helno mid ka mid ah gabdhaha ayada qiratay in ay shirqool u maleegtay saygeeda oo hadda ay u hayso 3 canug. gabadhani ayaa naga ogolaatay in ay nala wadaagto sheekadeeda si ay noola qaybsato qaababka loo fuliyo dhagarta inta badan loo maleego ragga aruuska kuwaasoo islahaayeen waxaad jihada saarteen nolol farxad iyo reenreen ay ku dheehan tahay. waxaan si kumeel gaar ah u qarin doonaa masawirka dhabta ee gabadhani si aysan dhibaato ugu dhicin ayada iyo saygeeda. waxaan inta uu barnaamijka socdo ugu yeeri doonaa Xaliimo oo aan ahayn magaceeda dhabta ah. Xaliimo waxa ay inoo sheegtay in rag badan oo Soomaaliyeed uu ka mid yahay saygeeda loogu been guuray bikranimo aan jirin, ayada oo loo isticmaalayo kimikaal casri ah oo lagu yareynayo xubinka taranka ee dumarka. Xaliimo ayaa ayada noo sheegtay in bikranimadeedii ay ku weyday wiil uu xiriir kala dhexeyni jiray inta aan la guursanin ka hor, laakiin ay go'aansatay inay isticmaasho daawadani si ay u qanciso saygeeda oo aaminsanaa in xaaskiisa uu guursani doono ay tahay bikro si uusan shaki u soo dhaxgalin guurkooda. 7 sano gudahooda ka shaqeynaaye 6 sano ilaa iyo 7 sano waa waqti aad iyo aad u dheer. marka magaalada Wajeer waxaa jirto oon weli aan soo shacbixin in maaragtay dumarka waqtiga la digaalinayo saaluunka la geynayo qalab loo isticmaalo ay jirto oo xubinka taranka lagu yareeyo si gabadha ayada habeenkii la soo galbinayo ugu muuqato inay tahay qof aan weligeed la isticmaalin. marka arinta ayada maxad ka dhiilahayd ma beenaynaysaa misana waa taas way jirtaa run waaye muddo 2 sano ay socotay sanooyin saanay u socdeen sanooyin sidan ay u socdeen waana run taas way jirtaa marka arinka dumarka uu kaliya ka warahayaan raggi kama warahayaan anu kale og waayo rag waxay ogaadaan ma jirin anu kale gudahayna ku sameeyno. marka qofka markii uu wax qalabkaas uu isticmaalo miyuu u muuqanayaa inuu maaragtay yahay qof oo sidiisii hore ku soo laabtay oo kaleeto? habeenku ugu horreysay ninka waa u malaynayay gabadho sidii hore leh ahaana u lahayn. marka habeenka ugu hore wuxuu u malayn karaa in maaragtay wixii dhan ay sidooda iska yihiin. gabar cusub camal waa gartay. gabdho baqaya jirta maaha oo ninka balanka qaadantay ninka loo tagaynin waana dhacday waayo sidaan gabdhoonahanaba inta meel ilana lagu haysto marabna sidaas darteed ayaan u sameeynaynaa arintaas. lama dhihi karaa gabadha khiyaanada ay wado inay meeshaas ku joogsan karto oo mar horeba rag kale ayaa ninka ayaga gabadhii u guursaday la soo isticmaalay. ma liis dhihi karaa gabadha markii la guursado ka damba waxyaabihii hore oo ay u soo martay inay ka garwaaqsato oo ninkeeda kale ay ku ekaato? taas way jirtaa waayo hadda balse oo nin heshid oo ninka guur la gashid dareen kale nin aadid ma qabaysid ku qarkooda iska sameeyaan waa jirtaa. haddii ka waran gabadha ay ileen waa qof horaan wax u soo arkay ninka hadda ay haysato oo xalaash u qabo ay ku qanci weydo marka loo eego kii u bilaabo ku laabato waxyaabihii hore ay u soo martay marka loo eego taas ma ka saa. qaar ka mid ah shacabka ayaa sheegeen arrinkani ku soo korodhay magaalada Wajeer inay ku tilmaamayaan fasahaad walow ay sheegeen in xilliyadii hore ay jiri jireen qaabab kale oo dabiici ah oo lagu yareyni jiray xubinka taranka iyadoon la isticmaaleynin wax daawo ah amba kimikaal. qodbintu waxa weeye maamoodinka maama sacnaysaa jirta naagaha kama buulo joogada camal maama sacnaysaa jirta gabdhaha oo maamoodinkan waayeelkan noqono dhaxda gabdhaha sacnaysaa gabdhaha qashanka iyo qurunka iyo ka soo daaysaa la dhaha laakiin maamada idaha waxyaalo kalena way hagaajisaa way soo islaantaad hadda markay isla fiktiin meesha la soo hagaajin oo la soo dhaqay ku leedahay adigu asraacdeen gudaha ay la gashay saan hoos iski walaxa lagu soo hagaajin waa la soo qodbay waa soo noqday waa la soo hagaajin waa qurunkan waa iga soo daaysaa lagu dhahay ninka ragga qurunka laga soo hagaajin leemoy waa soo qodbay ma dhahayn taas hore aan u aragnay يعني ولما ملا يعني السكيدج oo baalka dad weynay waa la yareeyna markaan islaanta waxay noqon bikra camal